dhaqankii dumarkii Canadian-ka ahaa oo ninku hadduu hadlo horta rag way wada dhufaanayihiin waan idinku bushaareynaya xagga nin fayoomi ma jiro marka dumarka Canadian bay noqdeen marka gabadh baa waxay tiri odayga bay igu adadka ma sha Allah haye maxaa dhacay Soomaaliya markan joogay de waa taqaanaano ninku ku yar adagii dumarka Canada timi dawladda guri bay siisayo magaceeda iyo magaciisa way ku wada qortay sheeg way siisay lacag rabay u soo dhacdaayo magaceeda iyo magaciisuna way ku qoran yihiin caruurtana lacag baa lagu siiyaayo magaceeda ayaa lagu soo qoraa magaciisa lagu ma soo qoro Soomaaliduna way iska dhalan yar yarka Soomaalidan arag caruurta weyn dhalawan daadinaan sida digaaga islaantii marka way yara lacagaysatay oo ninkii de markay Soomaaliya joogtay ay ku oran jirtay war hooyaday baa timiye bal wax ii dhiib ama walaashay baa laga dhintayaan in yaro masruuf u diray ii dhiib sheekadii way isbedeshayo ayadii baa lacagtii hayso asagii baa leh bal ii dhiib in yaro ku soo shaaheeyo asagii baa shahaadanaya waxa dhacday marka musiibada dhacday gabadhii marka way isla weynaatayba وأنا بنيك مصروفيتي وردين مطبخ قلبي تري ما أنت واربعة وما أنت هدي وانكو سوقره مطبخ قلب ما أنا مطبخ قلب ما أنا هبلة ونيجي شراء ما حيت ورا أما الباب كقبصو أما مطبخ قلب أنا قلت بقولي بلايا مطبخ وقشة مقرقض أنا هاي وكبح الباب كقبصة ذاك gabadhii marka ilaa iyo 6 caruur ay haysa Soomaaliduna waxay ku xuntay markay gabadha ay furaan ama ay ka tagaan caruurtana way raaciyaan Soomaha yar yar kana waynu furaa gabigoodaba waxa dhacay gabadhii dhowr iyo 10 sanadood bay adkaysanaysa dhowr iyo 10 sanadood ayay ceebteeda qarsanaysay ilaa odaygii dabaday dhigtay aniga is xukumo bay leedahay gaari yaro waxay wadataa minivan ayada ay isu sarreysa caruurteeda ayada masruufta waxay isleedahay wadankii aqal ka dhiso caruurtii marka kuray miilan noqoto de waa weynaaday caruurtii marka way iitimi waxay tiri caruurta igu caawi caruurta maxaa ku dhacay caruurtii waxay ka noqdeen laba mid sakhraana oo khamriga sida isku shubaya iyo mid noqday qowm luud oo qowm luud noqda Soomad garan laba de waxa xeeray fanaal kala dhacay maxaan sameeyaa odagii aynu soo lad qabanay way aynu soo celino odagii dib loo soo celiyo odagii waanu soo celinay dadka buufu ku jiro inta ka saaro buufka moogsi waanu soo celinay ilaa waxa weeye oday aan caruurtii ka maqnaa 12 sanadood iyo charter yar yarku odaygan guriga dhex taagan waa la yaabayn hooyadiiba ku yiri who is this kani waa ay horta saytari kani waa aabaha makaasuul xagu ku maqnaa inankii iyo inantii iyo inamadii iyo hablihiiba odaygiina ma arki karaan islamana fahmayaan isma arki karaan odaygiina waxa ku qufulan war fariiso hadii kale inaan waan ku karbaashi doonaa asaguna waxa uu kula ima taaban kartid dawladdan aniga walayna booliska kugu yeero inaan god kugu toori waxa dhacday marka tarbiyadii meeshii way ka maqan tahay shabaabka yagi ma hablihi mise inamadi hablihi ilaahay wuu noo hanuuniyay oo hablaha waxa gacanta noogu haya hooyooyinka waayo hooyada Soomaaliyeed si walba hawaalato waxa ka dhaadhacsan wali waxa ka dhaadhacsan ninku meelu mu ka soo bixi haska waasho khamriya soo cabo cid ha soo dilo jeel ha soo maro
in waxa soo xado ama tacliinta ku xumaad meeluu muu ka soo bixi inanta laakiin way ilaalinaysaa waxay isleedahay dee ceebteedu waa ceebtaada oo haddii berito ay soo uuraysato ama meel lagu arko dee cid albaabka isa soo taagaysaa ma jirto marka habli bay ku mitideen waxaan hadday dumarku hablayaba iyo ibnaba ku mitidi lahaayeen ummaddu way noo hagaagi lahayd